الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع الإعراب هذا محله أنواع الإعراب إعراب كالنوعيال كيسة هذا محلها هل كان ومشي لوغا هدلايي إعراب كأنواع كيسان هل كان كجلينا أنواع الإعراب إعراب كالنوعيال كيسة هذا محلها meeshaan waa meeshii looga hadlayo lagu baranayay i'raabka nu'yaalkiisa qaala Muhammad ibn Daawud as-Sinhaaji al-ma'ruuf ibn al-Ajrumi wuxuu yiri Muhammad ibn Muhammad wa aqsaamu i'raabka qaybihiisu afar weey i'raabka qaybihiisu waa afar ayuu u qaybsamaa carabtu kalaamka ay ku hadleen ayaa culumada nuxaadu raaceen waa baareen waa dabagaleen tatabbuc ay sameeyeen raacid istiqraa ay sameeyeen waxay ogaadeen i'raab inuu afar kaliya yahay oo mid shanaad jirin tatabbuc lagu ogaaday tatabbuc raacid wa aqsaamuhu i'raabka qaybiyaalkiisu afar weeye rafcun godwey wa nasbun kordhig wa khafdun hoosdhig iyo wa jasmun reeb i'raab waa afartaas rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun waa afartaas i'raab rafcaha loo hormariyaa sababtuna waxay tahay kalaamku kama maarmo tarkiib oo mufiid ah oo aan rafca ku jirin ma jiro ma la keeni karo carabiga حيل تركيب marka lagu yiraahdo keen jumla mufida keen marka lagu yiraahdo ficil iyo faacil hadad keento faacilka marfuuc mubtadiya khabar hadad keentana labadiiba waa marfuuc inna iyo isimkeedii khabarkeeda hadad keentana khabarka marfuuc kalaam mufida oo aan lafdi marfuuc ku jirin lama arko marka asaga loo hormariyo xayla lagama maarmo waa umda leeyahay وعمدة وتير وياه كلام مفيد او لغو هادلو او اوسن مرفوع ku jirin lama arko ma laga maarmo sidaas loo hormariya wa nasbun kordhig nasbaha aamilka keena aad u xoog badan oo ficila badanaaba keena saas loogu xijiya wa khafdun hoosdhig خفضها جسمها وكشرف بدن يها ليري محايره اسمكو خاص كوي وجسم هذا ميل هرتay loo arka saa u dambeeyo marka waxa loo damariyaa darajada ugu dambeeyo iska yeesho falil asma marka fiiri waxa la iraabo maxay soo ogaanay waa ismka daahirka iyo ficil mudaari al khali an an-nuray labadaas bis la i'raaba i'raabtuna waa afartan siday u kala leeyihiin asmaada yaa gala afcaashiya gala afcaal lagu sheego waa mudaaric oo shuruudii laga helay asmaada lagu sheegana waa ismka daahirka yaa gala marka yaa gala say u kala leeyihiin afartan falil asmaadi waxa u sugnaaday min dalika madkuurkaas dalika waxa lagu ishaaraa rafcun nasb khafd jasm afartiya lagu ishaaraa bi macna madkuur falil asmaada waxa u sugnaaday min dalika madkuurkaas la soo sheegay xaqiisa waxa uga sugnaaday ar-raf'u gud wa nasbu kordhig wal khafdu hoosdhig wala jasma wax reeba fi asmaa dhexeed ma ahan asmaadu saddex ay leedahay raf'u nasbu khafdu macnaheedu waxa loo jeedaa isimka waa dhici kartaa caamil rafciya inuu koor maro la rafciyo waxa kaloo dhici kara caamil nasbiya inuu galo oo la nasbiyo waxa kaloo dhici kara caamil khafdiya ama jarajar iyo khafda waa isku mid inuu galo laakiin ma dhici karo
caamil jasmiya inuu ism galo maba galaba waxyaalaha jasmada keenaa ficilkay qaas ku yihin maba galo ism marka ism la jasmiyaa ma jiro ism la jasmiyaa ma jiro maxaa yeele caamil wax jasmiya ism maba galaba isimku saddexdaas mid ya imaa inuu ka horeeyo caamil rafciya loo rafciyo inuu ka horeeyo caamil nasbiya inuu ka horeeyo caamil khafdiya ama jara waa isku mid jar iyo khafdi laakiin ma jiro isim la jasmiyo oo caamil wax jasmiya isim maba galaba jawaasimta waa arki doonaa maba galaanba asmaada ficilay gaar ku yihi asmaa maba galaan marka haddii lagu yidhahdo saddexda xaalo oo isimku icraabka ku leeyahay sheeg waxay leedahay rafca nasba khafd waa saddexdaasu leeyahy falil asmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas alrafcu wاlnasbu wاlkhafd walaa jasma wax reeb ah fiiha asmaa ma ahaanin walilafcaali afcaashii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas daalika waxaa lagu ishaaraa rafco nasbo khafdu jasmu afartaa lagu ishaaraa walilafcaali afcaashi waxaa u sugnaaday afcaasha la sheega waa ficilkii mudaaric oo shuruuddii laga helay walilafcaali afcaashi waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas xaggiisa alrafcu god wanasbu kordhig iyo waljasmu reeb walaa khafda hoos dhig fiihaas afcaal dhexdeed ma ahaan ficilka mudaarica icraabta saddexu ku leeyahy waxaa dhici kara caamil rafciya inuu galo oo la rafciyo waxaa dhici kara caamil nasbiya inuu galo oo saas lagu nasbiyo waxaa dhici kara caamil jasmiya inuu galo laakiin ficil lama khafdiyo ma dhici karo caamil khafdiya inuu ka hormaro oo galo maxaa yeelay fiiriya cawaamisha khafdada keenta asmaaday khaas ku tahay caamilka wax jara xuruufuljar calaamad isimka lagu yaqaanay bay ahayd afartii calaamo isimka lagu garanayayba ka mid ahay soo ma khafdadu calaamad yay u ahayd isim marka ficil maba geli kartaba waxay gaar ku tahay isim marka xuruufulkhafdi ama xuruufuljar waad soo ogaatay yay galaanay gaar ku yihiin isim meel kale maba galaan ficil maba galaan kelimadaad aragto xaraf uu ka horeeyo min xuruuf iljar waa ism sharax maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay anwaacu licraabi icraabka nucyaalkiisa allatii anwaacda taqacu dhacda fi lismi isimka dhexdiisa walficli ficilka dhexdiisa jamiican dhammaan xaal ay yihiin arbacatun wa afar isku dar anwaaculicraab oo dhan waa afar wa aquulu waxaan leeyahay anwaaculicraabi icraabka nucyaalkiisa allatii anwaacda taqacu dhacda fi lismi isimka walficli ficilka jamiican dhammaan xaalay yihiin arbacatun afar wey alawalu kan ugu horeeya alrafcu god wey wahaanii kan labeeya annasbu kordhig wey wahaaliu midka saddexeeya alkhafdu hoosdhig wey waraabici midka afreeya aljasmu jasmo wey walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkoo min haadihi lanwaaci anwaacdan ka mida anwaacdan alarbacati afartaa macnan macnaa u sugnaaday macnahaasoo fi luqati luqada dhexdeeda ahaaday iyo wa macnan macno macnaho fi istilaaxi nuxaati nuxaadda istilaaxooda ahaaday dhexdooda walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkoo min haadihi lanwaaci nucyaalkan ka mida nuucyaalkan alarbacati afartan rafco nasbo khafdu jasmu afartan nuuc mid kasta waxaa u sugnaaday macno macnahaasoo fi luqati luqada dhexdeeda ahaaday iyo wa macnan macno macnahaasoo fi istilaaxi nuxaati nuxaadda istilaaxooda dhexdiisa ahaaday macnaheeda waxay tahay afartan mid kastaa luqadana macnuu ku leeyahy istilaaxana macnuu ku leeyahy rafcadii ka bilow ama rafcu rafcihi fahuwa rafcaha fi luqati luqada dhexdeeda xaal u ahaaday alculuwu waa sarayn walirtifaacu kor noqosho saasaa luqada lagu yidhahda rafca luqa ahaan alculuwu sarayn walirtifaacu kor noqosho waa kaasa macnahaasaa luqada lagu yidhaha waa luqada wa huwa rafci fi listilaaxi xaal u ahaaday taqayurun waa isbedel maksuusun oo la gaar yeelay kelimadda aakhirkeeda isbedel ku imaana wey oo gaar ah
calaamatu calaamada lagu gartaa adamatu waa damada xarakada oo godka xarakadaasa lagu gartaa calaamad u ah iyo wamaa naaba canhaa wixii ka naa'ib noqdo damo iyo wixii ka naa'iba calaamad waxay u yihiin kelmaddu inay rafcisanta rafco waxaa la yidhaha isbedel kelimadda ku yimaada isbedelkaas waa macnawi laakiin calaamadda lagu garto waa damada iyo wixii damo ka naa'iba damana afar shaya ka naaib saddex shaya ka naa'ib noqoto alwaawu waalalifu wanuunu saddexdaasaa ka naa'ib noqoto damana saddex shaya ka naa'ib noqota alwaawu waalalifu wanuunu marka damo iyo saddexda ka naa'ib noqota afartaas aa lagu gartaa meesha rafcadu ku jirto rafcadu waa isbedelka kelimaddu ay isbedelaydo waa macnawi calaamadna afartaasa u ah wa huwa rafcii fi listilaaxi xaalu ahaaday taqayuru waa isbedel maqsuusun la gaar yeelay calaamatu calaamadda lagu garto rafcada addamatu waa damo iyo wamaa naaba canhaa wixii naa'ibka ah wasatacrifu waad garan doontaa qariiban mar dhow maa yanuubu waxa ka naa'ib noqda can damati damada fi lfasli fasalkaad ku garan doontaa fasalka alaati soo socdoo imaanaya fasalkaasaad ku baran doontaa waxyaalaha damada ka naa'ib noqdo oo ah alif wow nuun in sha allahu hadduu alla doono alla hadduusan doonin baran maydin ka horaad iska dhime ama ka horaad casharka ka hare ama waa fahmi weyne waa alla inuu doonaa shardi ilaahay inuu doono unbaad ku baran kartaa oad ku garan kartaa wayaqacu rafcu rafcuhu waa dhacaho waa galaa fii kullin mid kastoo min alism ism ah iyo walficli ficil isimka waxaa loola jeedaa isimkii mucrabka daahirkaa ficilkana waxaa loola jeedaa ficilkii mudaarica ahaa alkhaali can nuunayn labadaasaa loola jeeda rafcuhu waa galaa ism iyo ficil labadaba naxwu yaquumu caliyun cali waa istaaga hadda yaquumu waa ficil mudaaric waa rafcisan tahay rafcihii calaamadan ku galayna waa damada miimka saaran caliyun waa isim waa rafcisan yahay waa faacil calaamadan ku garanayna waa damada ya-da kor saaran wayasdaxu waa qayliyaa albulbulu shimbirkii magaciisa bulbul la dhihi jiray waa shimbir oo cod qurxon oo cod quruxdiisa ay carabtu kuba mahmaahdaba mahmaaha ay ka dhigaanba waa cod qurxooyin bulbulaa la yidhaahdaa bulbul wa yudrabu bihi lmathalu fii xusni sawt la yidhahda axsanu waxa weeyaan min sawt اlbulbula la yhahda sawtka oo aad tusaalaha laga dhigayo wayasdaxu waa qayliya qaylada wey yasiixu wey taabka xaashiyada waa in kugu yaallaan xulalu dahabiyaha inay tahay yasiixu macnaheedu inuu yahay yasdax waa qayliya albulbulu yaquumu hadda waa ficil mudaaric caamil rafciyaa ku jira caamilkaas waa macnawi waa ficilkan ka marnaashada uu ka maran yaho ka qaawan yahay caamil nasbiya iyo mid jasmiya mar hadduu labadaas ka maran yahay mid rafciyaa ku jira yaquumu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqil waa rafcisay calaamadan ku garaynana waa damada caliyun faacilu yaquumu marfuuc waa rafcisay wa calaamatu rafci maxaa calaamada ku garayna addamatu daahiratu calaa akhiri wayastaxu lbulbuluna waa la mid ixraabka wa ama nasmu nasbihi fa huwa nasbuhu fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaal u ahaaday alistiwaau waa kor noqosho iyo walistiqaamatu toosnaasho alistiwaau sinaasho kor noqoshaa dhihin hadda waxaa loola jeedaa istiwaha shaygu inuu isla eg yahay ayaa loola jeedaa maanta saasaa loola jeedaa waa nasmu nasbaha fi luqati xaal u ahaaday wa ama nasmu nasbaha fa huwa nasbuhu fi luqati xaal uu ahaaday alistiwaau waa sinaasho walistiqaamatu toosnaasho saas wey wa huwa nasbaha fi listilaaxi istilaaxa nuxaadda xaal u ahaaday taqayurun waa isbedel taqayurkeesoo maqsuusun la gaar yeelay taqayurkeesoo calaamadda lagu gartaa alfatxatu ay tahay isbedel kelimaddu ay isbedelayda wey aqirkeeda calaamadda lagu gartaana waa alfatxatu wamaa naaba canha
waa fatxa iyo wixii ka naa'iba waxa ka naa'ibana waa afar alalifu wاlkasratu wاlyaau wa xadfu nuun waa la yaqaan horaad u baratay afartaasaa fatxa ka naa'ib noqoto wa alalifu wاlkasratu wاlyaau wa xadfu nuun kaasaa la yidhaha nasbu halkuu gala nasbu ismna waa gala ficilna waa gala wayaqacu waa dhacaa annasbu nasbu fii kulli mid kastoo min alismi isimka ka mida iyo walficli ficilka ayda noqoshee ayda waxa wey sidii rafcadu ay u gelaydoo kale wey naxwo lan uxiba ma jecli alkasala wehsida wehsi waa nabca aniga cashar dhegayso miiska iska saar berri galab soo qaad markii jawaabta lagu weydiiye indhaha caddee ma jecli taas lan uxiba ma jecli alkasala wehsida hadda fiiri uxiba waa ficil mudaaric waa nasbisantahay maxaa yeele caamil nasbiyaa ka hor maray lantaas way caamilku inay nasbisan tahay fatxadan ku garayna ba'da kor saaran alkasala waa isim waa nasbisan yahay maxaa yeele waa mafcuul bih uxibudaa nasbido caamil u ah ficilkaana caamila oo ku camal falaa uxibadaa caamil ah oo alkasala ku camal fashay uxibana iyadu yaa ku camal falay lanta haddii lu yihahdaa lantu waa caamile aawa macmuulkay ku camal fashay uxiba uxiba waa ficil waa caamile aaway macmuulku ku camal falay kasala marka hadda alkasala waa nasbisan tahay calaamadan ku garayna nasbadana waa fadxada saaran lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin mabniyin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab uxiba ficlu mudaaric منصوب بلن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله فعل مضارع همسة لغو بالوضي وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الكسر مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وأما الخفض خفضها فهو خفضه في اللغة حال هذا التسفل وهوس نغش هوس ضعو تسفل هوس نغش أما هوس ضع وهو خفضه في الاصطلاح حال هذا التغير واسبدل مخصوص لغار يلي مخصوص لغار يلي تغير كاسو علامه لو غرتا اي تاي الكسره كسره iyo wama naaba anha kasra wixii ka naib noqda waa laba waxa ka naib noqda al-fathatu waliya laba ka naib noqon jirtay kasra al-fathatu waliya labadaas ka naib noqon jirtay khafdaha ku gala ولا يكون الخفض قفضه مع هذا إلا في الاسم اسم معنى مال كلمة قلو مال كلمة قلو هاي العامل كينا أيام مال كلمة قلو حروف الخفض مال كلمة قلو اسم قلو مركا خفضونا مال عن اسم ما قلو نحو تألمت وان حنو صدي من الكسول وهسي بدنها قلبك إلى حنونا وهسي بدنا مركنا لبعضها هاي سر meeshaan iska fadhiyaa hadhow dhowr sano kadib wuxuu arkaa dadka ardadii la fadhido xilka marayda xidigaha lixada agtooda marayda asaguna bartiyu fadhiyo dana kuwa kalo 3 sano kadib jiruuga loo bilaabayo kuwaasu ag fadhina markay 3 sano joogaan lixaha gaaraan uu iska quusana uu leeyahay wax la baran kara maana iga wad meelahaas fariisaa markuu arko kii jiruuga la dhageysan jiro caalima oo masjidka fadhiyo dadka diinta u qaybinaya uu leeyahay kaas waagi wax baraay meeshaan ku arki waa isnaqaan waa islaaq sajid sheeko hayta islaaq sajid haytare bas halkaad aadadi marka weesi badane markaan arko qalbigu ila xanuuna bay'aad haysata qofkaas iyo dindarada iyo dhibaatada ku soo socda Allah walkeena naga reeb digaaga markii loo dhigo ukunta 20 xabba loo dhiga hadow qaar jiijiilu noqo digaagu noqona qaarna funto ardayga funtooba weesi badan waa funto la iska tuura qashin qiimo maayo Allah funtaha naga dhig ta'allamtu waan ka xanuunsadaa min al-kasuli weesi badana aan ka xanuunsadaa ta'allamtu fi'lu wa fa'ilun ta'allam fi'lu maadi mabni ala sukun litisali bi dhamir raf'i mutaharrik لا محل له من الإحراب والطاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل من الكسول من حرف جر مبني على السكون وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء ساكنين وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات
alkasuul ism majruuru bimin wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bita'allamtu. hadda alkasuuli waa khafdisan yihi calaamadan ku garaynaa waa kasradaasaan ku garayna. wa ama aljasmu jasmaha fa huwa jasmuhu fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday alqaطcu goyn. jazama waa gooyey wey luqada carabiga jazama waa gooyo waa jasmiyey. wa fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisa xaalu ahaaday taqayurun waa isbedel maqsuusun oo la gaar yeelay. taqayurkaasoo calaamada lagu gartaa asukuunu sukuun ay tahay iyo wamaa naaba canhu wixii naa'ibka ah. waa isbedel kelimadda aaqilkeeda ku timaada. jasma haddii la yidhi kelimadu ku jirana waa ficil mudaaric kelimadaasuu ku jira. waa isbedel oo kelimadda ku yimaada. isbedelkaasna calaamada lagu gartaa waa sukuun iyo wixii ka naa'iba. waxa ka naa'iba waa xadaf kaliya ka naa'ib noqda. walaa yakuunu ljasmu jasmuhu ma ahaado ilaa fi lficli mudaaric ficil mudaaric keliyuhu gala meel kale ma galo. naxwu lam yafus ma liibaanin mutakaasirin wehsilo mid wehsadaa ma liibaanin mana guulaysan. naxwu lam yafus ma guulaysan oo waxa weeyaan imtixaankuma guulaysan mutakaasirun mid wehsadaa. lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun cala sukuuni la maxala lahu min alixraab. yafus ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi asukuun. mutakaasirun faacilu yafus marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri. yafus waa jasmisay hal caamila galay wax jasmiya waa caamilka waa kee lam marka lamtaas waa caamil aw macmuulkay ku camal fasho ficilka yafus aw camalkiina sukuunka khalaas naxwadii waa fahmay intaasaad sii dadaasho waa naxwadu waaba saddexdaas waa caamil iyo macmuul iyo camal. faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday ardayo faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday ardayo anna anwaaca alicraabi icraabka nucyaalkiisa calaa alaaثati aqsaamin qaybo saddexa weeye. afartii icraab afar u ahaa soo maahan afartii saddexay u qaybsamay afartii. faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday anna anwaaca alicraabi icraabka nucyaalkiisu calaa alaaثati aqsaamin qaybaalo saddexa inuu ku sugan yahay korku. qismin ka bedelo qayb ayuu ku sugan yahay qismigoo mushtarakin la wadaagsado bayna alasmaa'i asmaada iyo walafcaal afcaasha. qismi asmaadana waa galaa afcaashana waa galaa waa mushtarak waa mid la wadaagsado waa mushtarak. wa huwa qismigaasu alrafcu rafca iyo wanasb wey. labadaas oo icraabta ka mida asmaadana waa galaan afcaashana waa galaan. waad arkayda isim rafcisan isim nasbisan waad arkayda ficil rafcisan ficil nasbisan mushtarak wey labadaas. waa qismin ayuu u qaybsamaa qismigaasoo mukhtasin gaar ku ah mukhtasin oo gaar ku ah bilasmaa'i asmaada. wa huwa qismigaasu alkhafdu wey. khafduu asmaadu gaar ku yahy waaba calaamad lagu yaqaan isim khafdu. wa qismin u qaybsamaa qismigaasoo mukhtasin gaar ku ah bilafcaali wa huwa aljasmu waa jasma. asiladaas inaad ka soo shaqaydo adaa lagaa rabaa waa dersiga dambe asiladaas. calaamaat اlicraabi icraabka calaamadihiisi haadaa maxaluhaa halkan waa meeshii looga hadlayey. qaala mxamed ibn mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajrumi wuxuu yidhi baabu macrifati calaamaati اlicraabi hurdaaye kac marka waxaa la yidhi halkaan mar haddii la soo gaaro ilaa baabkaanu ka dhammaanayo meeshii naxwo lagu fahmi jiraad joogtaa. jilb iyo calaacal inta u fadhida aa qaybu fahmi gadaa hurdaayo warkiis daakan laakiin inta jilb iyo calaacal u fadhido indhaha keensatay maskaxda aa qaybu fahmi qaybla fahmi weyne maxaad u malaynada hurdaayo iyo wesilow kaasu isagu kuma jiro baabkaba inta tartamayda kuma jiro. baab macrifaat calaamat icraab baa la yidhaha baabka ugu muhiimsan dii ardaygu markuu baabkaasu dhammaado aad fahmi weydo meeshaas yaan waqti kaaga baabi'i waxaad fahmi karta raadso ama mid kaloo la bilaabayaa la raadsadaa ila moogta adiga maskaxda moogta waktigaagu waa qaali meelaadan wax ka faa'iidayn lama fadhiyo soo ma
marka baabkan waa la fiiriya markuu dhammaado gebangaboobo si mufasalu uga hadla marka hore kadibna haddana mujmalu ka dhiga mujmalkaasaa la isku imtixaana markaas la is-imtixaana haddaad dhacdo ajrubi la bilaabaya ka raadso lama quusto weliga horta laisma yidha wax ma barakad korontada maaragtay yarta aad noo shaqaynayda 18,000 oo gooru ku fashilmaa layidhi ninkii sameeyey 18,000 oo goor hadda ka war waa fashilmay isma laha waa fashil oo ku laabana oo leeyahay anaa keeni doon iska daa adigana laba ajrubigaad ku fashilantaad kii saddexaad kaale ka war marka laakiin baabkaan markuu dhammaado mid cusubad ka raasay horay looma sii socdo maxaa meeshu waxdi kuma hayna moogta naama zaydun lema hayna maantooda baabu macrifati calaamaati اlicraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkoodii wey baabu mubtade ka dhigo qabar soo qadaro baabu macrifati calaamaati اlicraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkoodii haadaa maxalkiis waa kana maxalkii lagu baranayey icraabka calaamadihiisa waa baabkan wey lirafci godkii ay u sugnaadeen 4 calaamaatin calaamado 4 calaamaa rafca leey kelmaddu inay rafcisan tahay 4 calaamaa lagu gartaa oo loo deliishada kelmaddu inay rafcisan tahay 4taas calaamo midaad ku aragto kelimadda waxaa la yidhaha kelimaddan waa rafcisan tahay waxaana u daliila calaamad heble ku jirta oo calaamadihii rafcada ka mid a 4taasaad u deliishani 4taas kelimadaad ku aragto maxaad ku xugmine inay rafcisan tahay xaa u daliila dula inay rafcisan tahay calaamadaanaad leedahay 4tii calaamo rafca mid ka midaa ku jirta lirafci godkii 4 calaamaatin calaamado 4 ha u sugnaadeen ka bedelo adamatu dama u sugnaatay ayadaa asala marka waa asal ayadu saddexda kale ayaday naa'ib ka yihin kelimad haddii la rafcina waxaa asal ah in damo lagu rafciyo saas darteeda ayada markaan ixraabayna cilayn mayno maxaa yeelay shayga asalkaa lama cileeyo saddexda kale ayaday naa'ib ka yihin saas darteeda markaan wax ku icraabno waa cilaynayna tacliilan daba dhigayna liannahu kada aan le soo ma jeedin tacliil lirafci godkii 4 calaamaatin calaamado 4 ha u sugnaadeen adamatu dama u sugnaatay ka bedelo walwaawowa u sugnaatay walalifa u sugnaatay wanuunu nuuna u sugnaatay 4taasaa lagu gartaa kelimaddu inay rafcisanta mid waa asal xaraka la yidhaha waa damada waa xarakada saas u godan saddexda kalena waa xuruuf ayaday naa'ib ka yihin ayaday naa'ib ka noqon sharax qaala moxamed cabdulxamiid wuxuu yidhi moxamed muxydiin cabdulxamiid moxamed muxydiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay tastadiicu ardayow waxaad awoodaa an tacrifa inaad garato ana alkelimata kelimadda marfuucatu mid la goday inay tahay biwujuudi calaamatin calaamo la helideed ayaad ku garaneen fii caaqiriha caaqirkeeda laga helo calaamadaasoo min 4 calaamaatin calaamado 4 ka mid ah ardayow kelimaddan inay rafcisan tahay inaad garato waxaad ku awoodaa 4 calaamo mid ka mida inaad ku aragto wa aquulu waxaan leeyahay tastadiicu waxaad awoodaa an tacrifa inaad garato ana alkelimata kelimadda marfuucatu mid la godo inay tahay biwujuudi calaamatin calaamad la helideed ayaad ku garaneen fii caaqiriha kelimadda caaqirkeeda laga helo calaamadaasoo min 4 calaamaatin calaamado 4 ka mid ah waaxidatun mid waaxidadoo minhaa 4ta ka mida asliyatun asal mid loo nisbeey wey 4ta mid ka mid ah waa asal wahiya midaasu addamatu waa dam wa 3 saddexna furuucun farcay ka yihiin canhaa damada wa 3 saddexna furuucun farcyaal wey canhaa damaday farac ka yihiin wahiya saddexda faraca alwaaw wow wey walalifu alif wey wanuunu nuun wey u fiirso marka kelimad marka la rafcinaa
afarta calaamo mid iska soo qabee ku rafci maaha afarta calaamo inta iska soo qabatid ku rafci maaha ma aha taas ogow kelimada marka la rafcina afarta calaamo inta mid iska soo qabato ku rafci maaha kelmadaha la icraaba waa 8 اسم مفرد جمع تكسير جمع المؤنث الصالح فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر الشيء أسماء الخمس جمع مذكر صالح مثنى أفعال الخمس وسديد اسم مفرد جمع تكسير جمع المؤنث الصالح فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء جمع المذكر الصالح أسماء الخمس مثنى أفعال الخمس 8 كلمة وحا الإعراب marka la soo dhaabiyo iska 8 waa 8 marka saas loo duuduubo 8 kelimadii aad rafcaydo afarta mid iskaga soo dhig maahan afartan calaamo 8 kelimo midba qaybu iska leh calaamadaha waa kala leeyihiin kelimad waxay iska leedahay damada wax kale lagu ma rafciyo kelimadna wawda iska leedahay wax kale lagu ma rafciyo kelimaduna alifta iska leedahay wax kale lagu ma rafciyo kelimaduna nuunta leedahay ma faham kelmadii la xiraabay meeqay ahaayeen 8 waa 5 saddex lagu daray 8 marka afartan calaamo waa kala leeyihiin marka u fiirso damada afar kelima lagu rafciyaa damadii la bilaaba marka qaala maxamed ibnu daawuud wuxuu yidhi faama damatu damada fatakunu damadii calaamatan calaamad ayay noqotaa lirafci rafcahay calaamad u noqotaa fii 4 mawaadica meelo 4 ahayna ugu noqotaa 4 meelood 8 ayaa la ixraabaya 4 meelood markay rafcisan yihiin wax kale laguma rafciyo dama lagu rafciyo inay rafcisan yihiin calaamadda lagu gartaa waa in dama lagu arko 4 faama damatu damadii fatakunu damadii calaamatan calaamay noqotaa lirafci rafcahay calaamad u noqotaa fii 4 mawaadica meelo 4 الاسم المفرد كبدلو اسم مفرد هي علامه ونقطه اسم مفرد كلقات مله مذكر هذا مؤنث هذا اعرابك كم موضوع هل لو قدروا منصرف هذا تنوين اقبله ما لا ينصرف هذا كلقات مله اسم مفرد لما كلقات هي حاله الرفع منصرف يا ما لا ينصرف اسكم ما مذكر يا مؤنث واسكم midka ixraabkiisu lafdiga iyo kan muuqana iyo kan lagu qadara waa isku mid ism mufrada dhamaan iyadoo la kala qaadin maxaa lagu rafcinaa dam hadduu saxiixul aaqil yahay damadu waa kan muuqani hadduu usan saxiix aaqil ahayna waa lagu qadara khalaas ism mufrada oo la kala qaadin damma lagu rafciya oo calaamada lagu gartay inuu rafcisan yahay waa dam faama damatu damadii فتكون ضمدي علامة نقطة لرفع رفعها علامة وأهاتا في 4 مواضع من الأفرع وأهاتا الاسم المفرد علامة وأهاتا وجمع التكسير علامة نقطة جمع التكسير مركا الله رفعنا علامة دي سوى ضم وحكا لما جمع التكسير لك القادم منصرف يا ما لا ينصرف ويسكمت باب كان مذكر يا مؤنث ويسكمت كان إعرابكيسو ظاهر كيا يمدكو تقدير كيا واسكمت ضمان جمع التكسير محل ورفعنا ضم واحد الورفعنا وجمع المؤنث الصالح جمع المؤنث الصالح علامته نقطه وجمع المؤنث كيله دغاي جمعيسي علامته نقطه جمع الصالح من نبات غلay جمع المؤنث الصالح سغاد kala qaadiyo ma yeesho meel lagu kala qaadaan ba jiri kuwaas meel lagu kala qaadaa soo socod جمع مفرد أبواب لغو كلا قادة يا صوصعو
saasaan hadkan u leenahay lama kala qaado isim mufrada abwaab lagu kala qaadaa soo socota jamcu tagsiirna meel lagu kala qaadaa soo socota asna laakiin jamcu saalim kala qaadba ma leh say meel lagu kala qaada ma jirto waxaa tiraa jamcul munisaalim calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahay waa maxay waa dam walficli ficilkii calaamad ugu noqotaa ficilkii almudaaric mudaaric ahaa alladii ficilkii lam yatasil uusan la xidhiidhsan biaakhirihi aakhirkiisa shay-un shayna ficil mudaaric oo aakhirka aan waxba kala xidhiidhin marka la rafcinaa damaa lagu rafciya ama saxiixulaakhir ha noqdo ama muctalulaakhir ha noqdo kala qaad male hadduu saxiixulaakhir yahay waa ka muuqanee damadu hadduu muctalulaakhir yahay waa lagu qadaraa laakiin ficil mudaaric oo aan aakhirka waxba kala xidhiidhin waxa la xidhiidhsanaa oo la diidaa waa 5 shay mimaa yuujibu binaa'ahu ow yanqulu icraabahu sharaxaan ku arki doonnaa shayga la diidayo oo lagu leeyahay yuusan la xidhiidhsan waa mimaa yuujibu binaa'ahu ow yanqulu icraabahu ficil mudaaric in mabni uu noqdo waajib yaa ka dhiga labadii nuun tawkiid iyo nuun ism icraabka in xarake laga raro oo nuun lagu rafciyana waa alifulithnayn waawljamaaca iyo almu'anath mukhadaba marka shay waa inuusan la xidhiidhsan shaygii muxuu noqday mimaa yuujibu binaa'ahu ow yanqulu icraabahu wax in uu mabni noqdo waajib ka dhiga sida labada nuun iyo wax icraabtiisa xaraka ka rara oo u rara in xaraf la icraabo iyo nuun midna waa inuusan la xidhiidhsan markuu sidaas yahay calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahy waa dam qaala maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aqulu waxaan leeyahay takuunu damatu damadu calaamatan calaamay noqotaa calaa rafci lkelima kelimadda la gudideeday calaamad u noqotaa kelimaddan inay rafcisan tahay calaamay u noqotaa damadu fii 4 mawaadica 4 meelooda igu noqotaa almawdic اlأwal meesha ugu horayda oo damadu calaamad ugu noqota rafcada alism اlmufrad waa isimkii la kala yeelay wاlmawdic الثaanي meesha labaadna jamcu tagsiiri weeye wاlmawdic الثالث meesha saddexaydaana jamcu اlmu'anaثi saalimu waa jamcu mu'anaث saalim wاlmawdic الraabic meesha afrayda oo damadu calaamad rafcada ugu noqoto alficlu mudaaric waa ficilka mudaarica alladii ficilka lam yatasil uusan la xidhiidhsan bihi ficilka alifu 2 kow walaa waawljamaaca 2 walaa yaau mukhaadaba 3 saddexdaas hadday la xidhiidhsadaan waa wixii ixraabka rarayay mimaa yuujibu mimaa yanqulu ixraabahu wey walaa nuunu tawkiidin nuunu tawkiid waysan la xidhiidhsan nuuntaasoo khafiifatun fudud aw haqiilatun culus walaa nuunu niswatina waynaysan la xidhiidhsan nuunu tawkiidka labaad nuunu tawkiid oo culus layusjananna waa midka shiran iyo nuunu tawkiid fudud walaa yakuunan min asaaqiriin lanasfacan midda ku jirta wey walaa yakuunan marka midna waynaysan la xidhiidhsan nuunu tawkiid ama ha cuslaato ama ha fududaato labada midna waynaysan la xidhiidhsan ama alismu اlmufrad isimka la kali yeelay maxaa loola jeedaa ism mufrada waa ama alismu اlmufrad isimka la kali yeelay falmuraadu kan loola jeedo bihi ism mufrado haahunaa halkaan wuxuu leeyahay haahunaa halkaan wuxuu leeyahay 5 baaba looga hadla ism mufrada 5 baab baabulkelima alkalaamu huwa lafdu lmurakab marka la joogo mufrad waxbaa loo yaqaan baabu macrifati calaamaati اlicraab baabulicraab marka la joogo mufrad wax kalea loo yaqaan wax kalea loo yaqaan baabu lmubtadai wاlkhabari wax kalea loo yaqaan mufrad baabu اlcalami marka la joogo wax kalea mufrad loo yaqaan baabu laa wاlmunaadana wax kalea mufrad loo yaqaan 5 baabaa looga hadlaa likulli maqaamin lahu maqaal meel walbaaba war u manaasiba helaa mufrad meeqa baabaa looga hadlaa 5 marka la joogo baabulkelimati ilaa kalaam iyo kelimatu iyo kelima jiraan idhi soo maa mufrad waxbaa loo yaqaan baabulicraab waa midkaan hadda joogno mufrad waxbaa loo yaqaan baabulcalam marka la joogana
mufrad wax kala loo yaqaan baab mubtada wal khabarna mufrad wax kala loo yaqaan baab la annafiyati lil jinsi wa baab al munadana mufrad wax kala loo yaqaan bal baab al kalima an ka soo bilown baab al kalima marka la joogo mufrad waxa maxaa la yiraahdaa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu sasa la yiraahdaa mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu waxa la yiraahdaa shay hadii la kala qaado macnihi guud uu tusayay qayb kamid aan tusay ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu wa wax hadii la kala qaado qayb kamiduhu macnihi guud qayb kamid aysan tusay hada fiiri shayga waxa lagu fahmaa shayga ka soo jeeda waxa tirada غلام زيد زيد adoonkiisi kala qaad غلام kaligiis wuxuu tusaa adoon tusaa macnihi guud qayb kamid tusaa زيد kaligiisna macnihi guud qayb kamid tusaa mufrad ku saas ma زيد alera mufrad marka baab kalima la joogo زيد oo kale qaam oo kale hada زيد kala qaad زيد soo qaad زي kaligeed meel ku qoranada ma زيد zuhdiga ma say waa زيد ziinada ma say waa زيد زيد ku jiri jirtay mid ay taadu ma tan mid gaar ah ku tusay mid ku tusay gaar hadii la kala furfuro macnihi guud wax kamid ah ku tusay hada زيد meel ku qoran زيد ma laga fahmay ma laga fahmay hayla mati زيد ziinada mati ay ku jirtay zuhdiga ma say waa tibidi زيد soo ma jeedin waa sidaas diinaar bal hada deelka kaliis qaad mal daalkan waa kee ma kii dunya ku jiri jiraya ma kii diinta ku jiraya mise waa kii diinaarka wax laga fahmay lama marka mufrad maxaa la yiraahdaa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu waa wax hadii qayb kamida la qaado macnihi guud wax kamida uu san tusay ee uu macna beelay baab kalima markaan joognay saas هي باب كان مفرد حاليا وكان ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمس تسالين باب كان ما كان شو باب العلم مركه لا جوج باب العلم اللي تجي اسم كعلمك بابكيس محل هذا المفرد ما ليس مركب طبعا مركب هاي ما ليس مركبا عليه ما ليس مركبا باب المبتدا والخبر مركه لا جوج مفرد محل هذا ما ليس جمله ولا شبيها بالجمله باب الله تنفي بجنس هي باب المنادانه ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف لكل مقام له مقام بوس والبا ورقارو لي marka shantaas looga hadla saas darteedu ku leeyahay huna mufrad wuxuu huna kuugu daraa meesha ku aragtay mufrad inaadan qaacidada ku keenin marka loo yiraahdo mufrad xaal lagu yiraahdo ayadoo la joogo baab karim ama ayadoo la joogo baab arab ama ayadoo la joogo baab mubtada mufrad xaal la yiraahdo ma laysa musanna halka xaba ma taqaanadi ساسو كائلالا ها هنا ساسو كولي مفرد كان كل شيء واحد مفرد لو يقال في باب معرفة علامة مثلا في باب الإعراب اسكن والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد